akhriskii qoraalku waa kan ka qayb qaatay jiritaanka af iyo dhaqan ummadda leedahay. maxay tahay faa'iidooyinka laga dhaxlo akhriskii qoraalka oo inta badan ee Soomaalidu aad uga hooseyso? akhriska haddaan la baran, buugaagta haddaan la qorin, bulshada dhaqankeeda iyo magaalada Burco waxaa ka jira naadiga Halkaraan oo ay ku boobeen dhalinyaro kaasi oo kaabaha labuurka iyo qoraaga akhristoona waxa uu ka helaa meel kayd u ah qorayaashii hore iyo kuwan maanta. Axmed Cabdiraxmaan Saalax waa gudoomiyaha Halkaraan waxaana uu ka warramayaa naadiga akhriska iyo qoraalka Halkaraan. naadigani Halkaraan waa naadi marka hore ay wada leeyihiin dhalinyarada gobolka Togdheer oo runtii mar walba u taagan kobcinta iyo kor u qaadista iyo dhiirigelinta akhriska iyo qoraalka, ilaalinta iyo kaydinta dhaxalgalka ummadda runtii afka Soomaaliga ku hadasha, iyo isbaridda buugga iyo bulshada ummadda in la isbaro buugga iyo bulshada, kulminta bahda aqoonta iyo runtii akhriska in la kulmiyo oo runtii waxyaabo badan la isweydaarsado. waxyaabuhu naadigan Halkaraan u taagan yahay ayay ka mid tahay. akhriska iyo qoraalku waa lafdhabarta bulshada. Cabdishakuur Saciid Cabdi waa laabuur ka tirsan naadiga Halkaraan waxaana uu ka warramayaa faa'iidooyinka akhriska iyo qoraalka uu leeyahay bulshada. akhrisku faa'iidada uu leeyahay bulshada runtii akhrisku waa iftiinkii aqoonta. haddaan akhris jirin ummaddu sidii ay uga qayb qaadan lahayd arrimihii bulshada ama dalkii ama xukuumaddii wayarta. marka akhrisku waa udub dhaxaadka bulshada, waayo afka qalaad waxaa lagu yidhahdaa the more you read the more you know. haddaad wax badan akhrido wax badan baad ogaanaysa. waxaan uga socdaa akhrisku waa lafdhabarta bulshada. inaad taariikh qorto, inaad dal ka qorto, ummad ka qorto, bulsho ka qorto. qoraalkuna ma sahlana, waayo sida buug loo qoraa way fudud tahay, laakiin sida buug loo turjumaa ayaa ka sii daran ama adag. akhristaha maanta waa qoraaga Barri Mustafa Cismaan Magaalo waa gudoomiye hore naadiga akhriska iyo qoraalka Halkaraan. akhriska ayuu ku baraarujinayaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Togdheer. shakhsiyad taageerta una ololeyn doonta haddii Ilaahay ka dhigo in akhriska iyo qoraalku horumaro. marka imka sidaad aragtidba waxbaan akhriyayo buuggaas ama talise Xaaji Cabdiraxmaan baan akhriyay. buugaagta inta ugu badan waxaan ugu jecelahay taariikh. marka waxaan jecelahay gudoomiyaashii igu horeeyay iyo dadkii naadiga taageeri jiray iyo xubnihii naadigaba waxaan iyo dadka reer Burco waxaan u soo jeedinayaa inay akhriska kor u qaadaan, ku xidhmaan maktabadda. heerka ay dawladdu ku lahayd akhriska iyo qoraalka oo meesha ka baxay ayaa suurtageliyay in hoos u dhaco qoraaga Soomaaliyeed iyo akhristihii wanaagsanaa. maktabadaha iyo librariyadu waa qaar ka qayb qaata akhriska iyo qoraalka. mana jiraan maktabad ama librariyo ay hirgelisay dawladdu si bulshada loogu baraarujiyo akhriska iyo qoraalka. waxaana jira hal abuuro iyo qorayaal si iskooda bulshada ugu soo bandhiga hibooyinkooda iyagoo markaasi kaashanaya naadiyo iyo dhalinyaro si iskooda isugu tegay oo hirgeliyay ururo lagu gacan siinayo akhriska iyo qoraalka. Xamse Kaaliye, Goobjoog, Burco.